ummada Soomaaliyeed way ka naxday aqoonsigii baad ka naxday laakiin anigu waan ku farxay ka war waxaan walaaleen ku codsanaynaa in aysan mar dambe ummada Soomaaliyeed ka nixin nimadii ha naga nixina nin walba waxa lagu yiri taqaana war aqalka ha kubid markaasuu yiraahdaa bay xasuusiyo dabka ku qabto imika reer Soomaaliland xasuuso tiri walaal ha naga nixina wad naga nixsan maxaad waysaa ونحن استبتشوك هبين ما نقول لك نحن تتقول عليسا واتكو عشينيسا واتكو قدريسا مقرنيسا وابن ولا لا يرسون وهذا ما تمالين ايغا فرحد انت ما جرتو من بس Soomaali la daaqad uu ka eegaayo guusha aynu gaadhayna cadawgeena xalayto muqdisho bad wajiyadooda ka dheehanaysa tusaalayan xalayto waxa la yiri 26 Juun ayaa Soomaaliya looga dabaaldegaya laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa tifiyada caalamiga laga sii daayay xalayto barorta Soomaaliya hoogayay oo baayay halkaas saacad qaybta Soomaalinimada ilaahay haynigu wada qori muuqaalka la gare wayna leegtiyo sheerta ka arkaa farxad iyo dabaaldega Soomaaliland iyo guusha Soomaaliland wayna ka arkaa sheer gare baa qurniyo fogeeniyo Soomaaliya mar waa la faanayo la hanjabaya marna waa la barooranaya laakiin si xalayto waxay soo halkii u dambeysay guul daradii bay soo taabteen xalayto waa halkaas xalayto la leeyahay qaybta cambuulada garaysa xalay wuxuu ku leeyahay midnimada Soomaaliya halis bay ku jirtaa nimadii iyo wadajirkii ummada Soomaaliyeed halis bay ku jirtaa oo sodigi lahaa aqoonsiga Soomaaliya waa baraak maxaa halis ku jira video call ku eetraft inuu prank yahay basaasay iskaga muuqanaysa ya ka kaalay maalin dhexda saan faariyay in Soomaaliya waa qabiil ceeb maahe ayaa waxa lagu yiri Soomaali waa laba waa nin wuxuu doonayaa sameyn karaa oo fulin karaya nin wuxuu doonayaa aan sameyn karay anigu waxa rag wuxuu doonayaa sameyn jiray hadalkii waxa marxaati firay Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xamse muxuu yiri wuxuu ku leeyahay anagu waxba miday karnaa idinku mideeya walaalayn reer waqooyi maanta waa maalinkoodii hadalkan xadfat walaalayaal hawsheedii ka qaban jiray qabtu leeyahay inta soo galaya maaha Xasan Sheekh Maxamuud leeyahay war kuwii shalay inta xorriyada doonay xor noqday ayadoo afartii kale ee Soomaaliyeed wali aanay xor noqonin yiri xorriyada aan helna kaligeen waxba nooma tartee Soomaali aan doonan walaalayaal waxba idin qaban meelo walaalayaal lixda kibar idin waalanay oo cala la soo caarnay la wallahi badhays mid kale kugu daraya ninkaaga la walaalayaal anagu waxba miday karayne ee idinku mideeya miyana lahayn ninkii la socod dhexdeeda iga soo hanjabayay lahaa dadku waa dad loo taliyo dad loo tashado iyo dad laga tashado kuwa u baahan in lala taliyo kuwa u baahan in loo taliyo kuwa u baahan in laga tashado iyo kuwa u baahan in loo tashado dadkii aad ku dhagahaynaysa waxa leeyahay walaalayaal anagu waxba miday karnaa idinku mideeyaan miya walaalayn reer waqooyi maanta waa maalinkoodii لا ما كل ولا ونحنتها عمالتها تشكل نحري وأبدية ولا هو نحنتها سقوا ذي ummada Soomaaliyeed way ka naxday أحد وعب ولا عليه أحيانا كمان حيصير على ولا نقاط مت كذا كدري حتى هذا كله في السوق ما مقلة شتى نكاح الدولة والسعودية بين محبوس صحاب السعودية ولا يقبض على يقول رئيسها دولة دي فينا ودقلي فينا قرحيو حالة هرجيت السعودية حسن شيخ محمود وحيد والله يا إن السؤال لا نسكت إن السعودي إنه وانا سكت إن لك سوون أود وين والله يا حارب أمد الصومالية أنا أشجع إن آد أجعلين ونددالني وحكست أو حنوكاس مروجاس حنوكا بحكرة إن نسمينه لكن ما أنا نقول إنسان هذا أنسان مركي واحد صح صستهد هستي أهيد إبرميا من لماذا ما يسبدش أنت سو كلمة مقاخ الله يقرأ هذا كان في سنة رلاس عم بمغليان وحوي حسن شيخ محمود قود هم بولا السقي
aanu Soomaaliland ama guud ahaan gobolada waqooyi kula dhaqmaynay waanu bedelaynaa buu siyaasaadkeena iyo policies-keena ku saabsan Somaliland iyo gobolada waqooyi guud ahaan dib u eegisaan ku samaynaynaa iyo icaadatu nadar hataa hadalkaa ku faahsiin ma fahmin gobolada waqooyi oo dhan ayuu yiri muu oranin sidii qaramada ka sheekeynayeen waqooyi galbeed ma oran burcay hargeysa kaliya ma oran laakiin se policy-gii aan kula dhaqmaynay gobolada waqooyi waanu bedelayna waan ku daalay yiraahdeen siyaasaadkeena iyo policies-keena ku saabsan Somaliland iyo gobolada waqooyi guud ahaan dib u eegisaan ku samaynaynaa iyo icaadatu nadar markiiba waxaa niyadeeda ku soo dhacday hadalkii laasacnadu ka lahaa uu lahaa maamulka waqooyi bari waanu aqoonsanay waxaan halkan ka caddaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan filayaa mar haddii policy-ga gobolada waqooyi aad bedelayso maamulkaas waa ka kacban maanaya goortigaa bele faati midda kale midnimadii halkan aad maalintii kaga dhawaaqaysay la socod dhexdeeda iyo buuryadii yareed xuxda ay gu hayseed ma ka kacbay noqotay magaalada Laascaano inay tahay magaaladii midnimada Soomaaliya ma waad naga dhixisay bay ku dambaysay ummadda Soomaaliyeed way ka naxday ma waxay ku dambaysay walaalayaal mar damaha naga dhixin ku dambaysay miya waxaan walaaleen ku codsanaynaa in aysan mar dambe ummadda Soomaaliyeed ka nixin ogsoono markuu leeyahay policy-ga guud ahaan gobolada waqooyi ama Somaliland bal bedel muxuu uga jeedaa faati si aan midnimo u helo waxay doonayaan aan u yeelo gaaysa si aan u helno fikir iyo talo iyo ra'yi iyo siyaasad policy walaalahaas qanci kara oo ku qanci kara in ay walaalahood mar kale la midoobaan yaay baadi goob hadalkan maxaad ka fahmaysaa waa hadalkii maalintii wadan ku lahaa dadku waa laba waa nin wuxuu doonaya samayn karaa iyo nin aan wuxuu doonaya aan samayn karayn laakiin riyo ku nool war anigu markaan raashic saxaaq ahay shalayto walaal qori kuma soo qaadan xabad kuma soo qaadin ma calaacarin ma ooyin haddana ay garatay keliya waxaan idhi hargeysa muqdisho mideynaya daqiiqada ku mideeyey isla 91kiina daqiiqada ayaan ku kala jaray walaal haddana ay garatay adigu sacuudi u tagtaya masar u tagtaya tugri u tagtaya hogaya ay tiraya no hadalkaaga iyo dadaalkaaga ilaa 91kii wuxuu ku soo dhammaaday hadalkan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego inaan aad iyo aad u jeclayn una dadaalnay wax kasta oo xanuunkaas murugadaas xanuun kala bixin kara inaan samayno laakiin ma aanan ku guulaysan waa xaqiiqtaas waa inaad naftaada horta u sheegtaa midnimada aad jelaysa hargeysa muqdisho warana ilaahay ka sugo gacanteeda ku jirtaa mana dhacaysana mid kale kugu daraya ilaahay cimriga iyo caafimaadka ha u dheereeya cabdiraxmaan cirre maalintu go-aanka qadhaar qaatay ma taqaana walaal waa maalinta laasacad isugu timaantay walaalayaal dowladda Soomaaliya ay soo guurtay halkan ay timi meeltaas u qoslayna meel soo guurtay iyo si sugo Israa'iil buu ku degay walaal markuu Israa'iil ka degayna uunsigii halkan ku wursanaysa muxuu ku dambeeyay waa naga nixisay ummadda Soomaaliyeed way ka naxday war walaalo waa naga nixinin aad baan ugu siraaxay walaal qalbi jabkiina markii koobanka Soomaaliland ka dago ilaahay nin raajic saxaaqa iga dhigay alxamdulilaahi rabbil caalamiin anaga buuriyana laguma xuquuqiyo walaalo nala kuma xuquuqiyo ya nala kuma xuquuqiyo walaalo shalay nala midnimada halkaa geeyey oo yidhi ka nisib ka nasaar sawirkan yaa walaalo ninka wax saxiixaya waa aniga walaalo ifaan ya ninkii saanta ingiriiska kula saxiixday ilmiga waxa ku dhalmeys imika tusaale galay meelaha laga niraash saxaaqa tiriyay oo leeyahay guumeysiga ninkii walba saanta kala saxiixay Soomaaliga ma aha kabayga marka dhageysato
wuxuu hal buu ka hadlaya gumaysiga ninkii saan ka qoray saw aniga maaha ninka yidhi heshiisii saxiix saw aniga maaha 60 sano hortii dawlad helay saw aniga maaha suugaantu goortay lahayd kaana naga siiba kana saara saw maaha oo caaw uma soorni waxaan soo xasuustaa xamse maalin la saacad ka hadlay wuxuu yiri ninku hadduu aabihii shabaho ceeb maaha xaqiiqadu waxay tahay ninkii aabihii shabaha waa aniga up الله الكباتبي up الله الكباتبي أنا أصلا ما حرقت قلت لك أنا شو بدوتي يقول ليش تقول عليها متوحى ستقول عليها دقيقتك خبرة دبلوماسي قاعد كحنا شنو قلت أنا ما أقدرش وين هرقيش سوري تقول عليها يديك هو جماعة صار صارتي جورجورنا هنا وين نوتي ماتا يا أنا صوينا ولا عليها deed gabiga noo yaacanays xaabadaan nagu guranayna sidii caadada ahayd ee deeli dab talaani mar kaliya talaani wabiyadu lagu dhaafi jiray way sidii reer Soomaaliland waxa leeyahay walaalayaal hadal jilicsanaanta ku mashquulka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xabad buu ka baqayaa halkan wax ku soo xilday mawduuca asana uga baxay walaalayaal Soomaaliya ka adkaanay dabaaldega walaalayaal